dabadayaal halkan waa horfadhi TV mar kale horfadhi group warbaahinta balaaran dabashana qiimaha leh waxaan rajeynayaa inaad sidoo kale nagala socotaan baraheena Facebook Twitter website-ka www.horfadhimedia.com sidoo kale nagala socotaan Facebook-gan ku leenahay www.facebook.com/horfadhimedia iyo waliba www.twitter.com/horfadhimedia/_media oo aad nagala socotaan iyo Suleymaan Xaashi oo isagana barta Twitter-ka iyo Sultan iyo dhamaantiin iyo siin dhamaantiin iyo waliba akhyaarteena kala oo dhan waad ku xidhnaa doontaan barnaamijyada wararkooda oo sharafna ku bilaabo isla markaan ugu horeysiiyo wararka caalamka dhinaca diblomaasiyadda wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay halkaas la saaray bandow kadib markii la sheegay in shaqaqooyin ay ka jireen magaalada xarunta ay Beledweyne maamulka gobolka Hiiraan ayaa xalay waxay ku dhawaaqeen inay magaalada ay ahayd mid bandow ah kadib markay sheegeen inay hubinayeen ammaanka gudoomiyaha gobolkaasi Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu sheegay in magaalada Beledweyne ay tahay bandow habeenkii lamaha ammaankuna ay yihiin kuwa lagu amray oo loo sheegay inay sugaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka waxa uu sheegay in ay sidoo kale doonayaan in ciidamadu ay noqdaan kuwa ammaanka si weyn uga qayb qaata sugana gabi ahaanba ammaanka oo maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka jiray gobolka arrimo la xiriira dhinaca ammaanka oo khalkhal aad u weyn dhali karayay waxaana ay dadka ku dhaqan deegaanadaasi badankooda ay si weyn uga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle oo ay ka beedisan yihiin habka loo qaybiyay iyo sidoo kale inaysan ku qanacsanayn xarunta maamulka oo laga dhigay degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halka nagala socotaan oo wararkii caalaa dhinaca diblomaasiyadda washana qiimaha leh ee markii ugu horeysay taariikhdana koonfurta Korea ayaa qof intuu ka baxsaday wuxuu aaday dhinaca waqooyiga arrintan ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid dhif iyo naadir inkasta oo la sheegay in aysan waqooyiga Korea warbaahin lahayn laakiin si dhowr jireen dad u soo fakaday haddana arrintan ayaa lagu tilmaamay mid aad iyo dhacdo la yaab u leh ayadoo dalkaasi xataa dadkiisu aysan haysanin cunto ku filan oo cunaan inay dad u fakadaan ma aysan dhici jirin laakiin inta badan waxa la arki jiray qulqul aad u tiro badan oo ka yimaada dhinaca waqooyiga oo u soo fakada dhinaca koonfurta kuwaasoo naf iyo nolol raadinaya ciidamada gaarka iyo ciidamada gurgure ee dhirta baara ee dalkaasi koonfurta Korea ayaa raadinayay muddo aad u badan laakiin waxa la sheegay markii dambe in la hubiyay qofkaasi inuu galay xuduudda khatarta badan ee aaga militariga ka caagan loo yaqaano waxaan la sheegay in la arkay qofkii oo gacmaha madaxa u saaran yahay oo ku qaylinaya luqadda ay fahmi karaan dadka reer waqooyigu lahajadooda isla markaana leh badbaadiye si kastaba ha noqotay militariga dalkaasi koonfurta Korea ayaa waray soo saareen waxay diideen inay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyaan qofku ku yahay inuu ahaa sarkaal dawladda ka tirsan iyo in kale waxayse sheegeen inaysan ilaa hadeerta kale sheegi doonin inuu ka badbaaday aaga halista badan ee loo yaqaan demilitarized zone ama aaga militariga ka caagan DMZ loo yaqaan waxay sheegeen inay u muuqato in qofkaasi aan la garan doonin inuu ka badbaaday ciidamada shiishka ku soo haya halkaasi waqooyiga oo inta badan ayagu ilka aragti ka toogtay cidii arkaan waxaana ay wararku sheegayaan in arrimahan ay si cakiri doonaan xaaladda hoggaamiyaha gobolka Korea Kim Jong Un oo dhawaan khudbad jeediyay ayaa waxa uu sheegay inuu dalkiisa u jeedo doono dhinaca gaajo ka saarista si kastaba ha noqotee inta badan waxaa la sheegay inay haystaan diirado ay ku eegaan ka hor intaysan go'aan ka gaadhin qofka ay tooganayaan ciidamada waqooyiga waxaana rajo yar laga qabaa in qofkaas isagoo nabad qaba uu dhinaca waqooyiga u talaabay dabashana qiimaha leh wararka caalaa dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan xogii ugu dambeeyay caalamka oo dhan gaan meel walba iyo si kastaba noo maqlasaan dabashana qiimaha leh ee ayagana haatan aan fiirinay Lebanon ayaa waxaa ka dhacay isbedel siyaasadeed oo cajiib xisbiyada Lebanon inta badan dalka Lebanon wuxuu tusaale u yahay dal la kala qaybiyay oo lagu kala qaybiyay mabaadi iyo diin ama afkaar si kale dalkaasi waxaa ka jira saddex xisbi oo saddex qolo ay kala leedahay inkastoo Soomaalida loo kala qaybiyay iyaga 4.5 wax la yiraahdo laakiinse Soomaalidu aysan ku khasbanayn oo u samuuqata in loo meeriyo iyaguna ay aqbaleen kuwanse waxaa iyaga lafkooda loo kale dawlado waaweyn oo arrintaasi ku khasbay oo u kala qaybiyay Shiico Sunni iyo Kristaan waxaa markaasi jiray taxaaluf bilowday sanadkii 2006 wixii ka horeeyay waxaa taxaaluf ahaa Sunniyiinta iyo Kristaanka laakiinse haatan waxaa bilowday 2006 waxaa bilowday taxaaluf cusub oo u dhexmaray Kristaanka iyo Shiicada oo ay lahaayeen wax loo yaqaan dhaqdhaqaaqa wada jirka ah ayagoo xisbiga amal la yiraahdo iyo xisbiga kale la yiraahdo Free Patriotic Movement oo Kristaanku leeyihiin amal waxa iska leh Shiicada ay isku darsadeen haatan arrintaas way dhamaatay waxaana taas ku dhawaaqay go'aankeeda siyaasiga ugu sareeya ee xisbigaasi gudoomiyaha ka Gabran Basil oo ah gudoomiyaha xisbiga The Free Patriotic Movement ee Kristaanka wuxuuna sheegay in aysan wadi karin wuxuu ugu yeeray jahawareerka siyaasadeed ee ururka
xisbullah oo ku tilmaamay mid taqalan wuxuu yiri waa urur aan la afgaranaynin oo runtii wuxuu macangay sida daraadeedna wuxuu yiri way naga dhamaatay intii aan la shaqay karinay arintan ayaa waxay u muuqataa ayaa la yiri mid taageero la xal sii doonta iyo fursad xisbiyada kale oo kamid ah xisbiga Sunniyiinta oo laga yaabo inay ku darsadaan oo ay markaas ku biiraan ninkan ururkaas madaxda ka ah waxa uu qabaa gabadha madaxweynaha dalkaasi Michelle Aoun oo asagu Kristaan madaxweynaha dalka ayaa ah Kristaan halka ra'iisul wasaarahuna uu yahay Mr. Maqati uu yahay mar walba amar xubinta ra'iisul wasaaraha waxa hela Sunniyiinta halka gudoomiyaha baarlamaanka ay qaataan Shiicada ururka Shiicada ayaa sanadkii 2006 wuxuu helay taageero aad u lixaad leh oo xataa uu ka helay dadka Sunniyiinta iyo kuwa Kristaanka ee wadaniyiinta kadib markii ay dagaal aad u adag la galeen Israa'iil dagaalkaas oo soconayay muddo 32 bari ah ayay waxay jilbaha dhulka ugu dhigan ciidamadii soo duulay ee Israa'iil ugu yaraana waxay u diideen in ciidamadoodii lugtu ay soo talaabaan xagga gudaha dalka halka bedelka ay Israa'iil xoog saartay awoodda dhinaca cirka ee duqeynta ah 32 maalmood kadib Israa'iil baa qilqil gashay dabadeedna Mareykanka ayaa waxa uu soo saaray qaraarkii caanka ah ee xabad joojinta ah kaasoo lagu kala gaaray halka dad badan ay u arkayeen in ay markaasi ay isbedel dhacay maalintaas waxa uu dagaalku dhamaaday waxa dhacday khudbadii caanka ahayd ee Xasan Nasrallah uu ka jeediyay telefishinka Almeydin halkaas oo kaga dhawaaqay inay dhamaatay maalmihii caruurta reer markaasi Lubnaan inta ay gantaalo lagu dhufto ay caruurta reer Israa'iil hurdi jirtay isagoo markaasi sheegay inay haystaan gantaalo u dhigma kuwooda oo kale halka dagala socotaan wararka waxa dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dawashana qiimaha badan intayna arrimaha iyo qadiyadka noocaas ayna ka bixin ku aadan arintaasi wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarsiinta Israa'iil Ayub Al-Qara oo ayaa wuxuu ku dhawaaqay inay muhiim tahay in Israa'iil ay qaarajiso isla markaana ay ka taqalusto Ismaaciil Haniya iyo Yahya Sinwar labada hogaamiye ayuu ku tilmaamay in la mariyo wadadii ay mareen labadii hogaamiye ee ka horeeyay ee Cabdul Aziz ninkii loo jeeday Rantisi iyo gudoomiye ninkii aasaasay xamas Sheikh Ahmed Yaasiin wuxuu ku tilmaamay hadii aan labada nin ayagana aan la marin tubtaas in aysan Israa'iil weligeed nabad ku harsa doonin isagoo la hadlayay channel Israa'iil the Israel channel 14 ama channelka 14aad ee Israa'iil ayuu wuxuu sheegay inay muhiim tahay in laga daba inay la kulmaan ayuu yiri labadan hogaamiye maanta noo labada dhintay macnaha xulli aakhir in loo diro wuxuuna sheegay inay muhiim taas u tahay Israa'iil 2004 ayay ahayd in markii la dilay labadaas nin ee mas'uuliyiinta Sheikh Ahmed Yaasiin oo ahaa nin curyaan ayaa wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay dhisitaanka ururka Xamas ee hadeerta lafdhabarka u noqday iska caabinta looga soo horjeedo ayaa leeyahay adoonsiga Israa'iil ee ka wada dhulka Falastiin gaar ahaan daanta galbeed Al-Qara waa mid kamid ah xubnaha xisbiga Likud wuxuuna inta badan uu si weyn uga soo horjeestaa isla markaana uu aad u daadifeeyay Xamas wuxuuna ku tilmaamay dhowr jeer in gantaalaha iyo wuxuu ugu yeeray hoobiyaasha ka imaanaya dhinaca Gaza aysan ahayn kuwo la dhayalsan karo aakhirkana Israa'iil ay meel xun mari doonaan ayuu dhowr jeer ka digay hadii aan hogaamiyaashaas la dhameen oo soo hadalka u dhigay daawadayaasha qiimaha badan mar walba xarjeynaya inaad daawadayaal wararkeena si weyn aad u faafisaan isla markaana qaybtan aad si weyn u soo raacdaan aad hubiso inaad hadii aad furato dabcan furto gambaleelka furato sidoo kalena aad subscribe ka tiraahdo waa uma baahnid inaad warka weydo afarta warba waxay kugu soo dhacayaan sidaada adoo barta gurigaaga fadhiya ayay ku soo dhacayaan shaqadaada ku jira ama gaarigaaga wata ama se dukaankaaga iibsanaya masaajidkaaga ku jira waxaan ogtiin fadhi media music male mar meel walba aad joogto ayaa daawo kartaa Makka al-Mukarrama dadka fadhiya ayaa daawada ayagoo xaramka fadhiya ay daawadaan waxaan ugu talagalay dadka qaarkood musiga dhibsanaya dabcan marka laga yimaado xagga diiniyan xataa dad baa masqaxiyan u dhibsanaya marka runtii dabashan qiimaha aad baad mahadsantihiin dabcan waxaan rabaa inaad ku soo dhawaataan qaybta afraad ee noqon doonta wararkeena oo dhan laakiin Hurfadhi TV qaybta labaad